dadkani ka soo jeeda beelaha Banaadir ee deega gobolka Banaadir ayaa ka cabanaya dhul boob lagu hayo dhul ay sheegeen in ay iyaga leeyihiin oo ay sheegeen in uu ku yaalo degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir odayaal dhalinyaro haween caruur iyo qeybaha kale ee dadka reer Banaadiriga ay ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa maanta isugu soo baxay goob banaan ah oo ku taala deegaanka Xamarweyne dhammaan dadkaas ayaa ugu baaqay dawladda Soomaaliya odayaasha dhaqanka iyo culimada diinka Soomaaliyeed in ay wax ka qabtaan dad ay sheegeen in ay dhul boob ku hayaan dhul ay leeyihiin shakhsi ka mid ah dadka reer Banaadiriga marka meeshan waxa timid dad baa sheegisho ay dhul xoog anigu xoog ma qabno ilaahay baa xoog leh dawladda waa u sheegayna waxaan leeyahay arxamar nabad bay jacelihiin nabad bay rabaan wanaag bay rabaan dawladdu waa ayidsanahay waxaan ka filanaynaa xaq ballankayna wuxuu ahay madaxweynaha ku dhawaaqay xaqan fulinaya waa inaa madaxweyne xaqi fuliya soo ku dhawaaqay inuu dhaacad ka ahaato maanta waxaan cabasho ka nahay dhulkeeni Banaadir asaliga ahaa boqolaalka sano soo jireenka ahaa ayaan waxaan u sheegaynaa bahweynta Soomaaliyeed in lagu soo socdo boob dhulkaas oo macnaa uu leeyahay Shariif Bakar Shariif Nuur oo aan naqaano oo Soomaali weyn dhan ay taqaano haddii runta la rabo ilaahayna laga cabsanaayo dhulkan dhul Banaadir waaye dhul banaan ma aha anaga dad ma dhacno dadna ma xoogno ilaahay yaan ka cabsanayna aadanka ma cabsano haddaan magaciisa dhumaayo dhulkaaney oo dhuna wala himid haddana waxaa dhiman inaa gurigaani nagala soo baxsado anaga toon yeelayna ma aha waa lisku baaba'a intaa lisku baabi'in intii wax garad ah wax afiiriso waxa ogaato annaga waxaan rabnaa sidii daacad ah wax inaan ku qaadano anaga xaqdado ma jecelnin Cabdi Casiis Ibraahim Axmed okay TV-ga caalamiga Universal magaalada Muqdisho.